haatanna kiisaska fayraska corona ayaa sare uga kacay dalka Hindiya waxaana uu kor u dhaafay 3 milyan oo kiisas. Hindiya ayaa noqotay wadanka saddexaad ee laga diiwaan geliyo tirada ugu badan ee xaaladaha fayraska marka laga soo tago wadamada Mareykanka iyo Brazil. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda fayraska corona ee Hindiya iyo sababta keentay in si weyn uu ugu faafo dalkaas ayaa Kawthar Maxamed waxay ka qadka telefoonka ee magaalada Hyderabad ay ku wareysatay Kadiye Xaaji Khaliif Maxamed oo ah Soomaali degan magaaladaas. walaal wuxuu marayaa xaaladii meeshii ugu sareysay iyadoo uu kor u dhaafay 3 milyan oo kiis. xaaladuna waxay aad uga sii dadhay labadii isbuuc oo ugu dambeysay iyadoo maalinta ka dambaysa uu kor u dhaafayay 70,000 oo kiis inta la diiwaan geliyay. dhimashadu iyadu waxay gaadhay 56,000 oo kiis oo qof ayaa u dhimatay. maalin walba waxaa la diiwaan geliyaa 1,000 qof oo dhimashaa guud ahaan Hindiya waa wadanka saddexaad ee laga diiwaan geliyay tirada ugu badan ee kiisaska fayraska marka laga soo tago Mareykanka iyo Brazil. Marka maxay tahay sababta keentay in cudurka uu si weyn ugu dhex faafo dalkaasi? Kawsaraysa la socotidba Hindiya waxay ahayd wadamadii ugu adkaa oo dadkooda ku soo rogay maxaa la dhahay bandow iyadoo hal maalin oo qura ay ku soo rogeen bandow 1.3 bilyan oo qof. sidoo kale dadka Hindida waxay ahaayeen dad u hogaansado awaamirta dawladdu ay ku soo rogto bandowga muddo ku siman 2 bilood ay bandowga ku jireen. sidaas oo ay tahay waxay Hindiya la soo dirsay dhaqaale xumo. arrinka ugu weyn oo hadda marka dhalisay in kiisasku ay sii siyaadaan waxa weeye Hindiya dadka ku nool waxaa jira dad u kala safra gobolada oo ka shaqaysta oo la yiraahdo migrant workers oo gobolkiisa intuu ka tago gobol kale ka shaqaysta. dadkaas ayaa xaaladda ugu daran la soo diristay iyagoo dadkaas ay dhan yihiin 3 milyan iyo bar. dawladdu u kala daabulaysa goboladii ay ka soo jeedeen iyagoo ku qaaday 2,600 oo tareen. marka sababtaas ayaa ugu weyn waxa hadda keentay in dadkii oo isku safray ay dhaliyo. sidoo kale xagga diyaaradaha ama hawada waxaa isticmaalayay markii xayiraadda la qaaday kadib 100,000 oo qof baa u kala safadhay gobolada Hindiya. marka isku socodka dadka oo gobolada ayaa ah sababta ugu weyn. waa kuwee marka gobolada ama magaalooyinka uu aad ugu faafay cudurka? magaalooyinka ama gobolada ugu daran hadda oo xanuunku ku faafay waa gobolka Maharashtra oo caasimadiisa ay tahay Bombay. iyada kiisasku wuxuu marayaa tiro ku dhow 700,000 oo kiis. sidoo kale Tamil Nadu caasimadiisu ay tahay Chennai oo isaguna uu fooda sii gelinaya 400,000 oo qof. Andhra Pradesh, Karnataka iyo Uttar Pradesh gobolada shanta oo intooda badan ay ku yaalaan koonfurta Hindiya ayaa kuwa ugu daran oo xanuunku saameeyay. ilaa hadda Mumbai 5 daqiiqo oo walba waxaa ku dhinta qof u dhimanaya xanuunka coronaviruska. laakiin magaalada Delhi oo iyadu ahayd meelaha ugu daran oo xanuunku uu saameeyay hadda waxay dareemaysaa kasoo kabasho aad u weyn iyadoo ay hoos u dhacday booska ay uga jidho magaalooyinka ugu xunxun oo xanuunku saameeyay. dhanka dawladda markaan eegno maxaa tallaabooyin ah oo ay ilaa hadda qaaday si loo xakameeyo fiditaanka cudurka? dawladdu aad ayay u dadaalaysaa. tillaabada ugu weyn oo waxa weeye ay hadda qaadayna waxaa ka mid ah baaritaanada inay aad u siyaadiyeen. maalin walba Hindiya xanuunka coronavirus waxaa laga baaraa 1 milyan. sidoo kale aad ayay ugu dadaalayaan sidii loo soo saari lahaa daawada talaalka coronaviruska iyagoo ilaa haatan uu heerka saddexaad u dhaafay. talaalka ay soo wadaan ee Covaxin wasiirka caafimaadka wuxuu sheegay in bisha December koraanteeda ay heli doonaan talaalkii ugu horeeyay Hindiya. marka aad bay u dadaalaysaa dawladdu. kaasi waxa uu ahaa Kadiye Xaaji Khaliif Maxamed oo u waramayay wariyahayaga Kawthar Maxamed Cabdilaahi. idaacadeeni ayaan intaas